السلام عليكم داودي aynu ku noqono sheekadan ciwaankeedu yahay xasuus qorkii geeriyaad ee baaraas kuubaas sheekada sababta aynu u soo qaadanay iyo cashirka aynu kala soo dhaxbaxayno iyo micnaha aynu doonaynaba xagga dambe ayaynu ku fahmaynaa horta aynu isla akhrino sheekada iyo sida ay u dhacayso aynu u noqono sheekada ciwaankeedu yahay xasuus qorkii geeriyaad ee baaraas kuubaas waxa lagu qadariyaa inay ka mid tahay sheekooyinka ugu qaayaha iyo fannimada sareeya qarnigii tagay ee dunida gaar ahaan dalka Brazil laga curiyay. Baaraas wuxuu fariimahan inoogu soo dirayaa xabaasha shishadeeda wuxuuna ku furfurayaa intan muddan isku hayay xasuus qorkan ma waxaad ku furfurtaa bilowgii mise dhamaadkii oo aan ka wado dhalashadaydii iyo dhimashadaydii ta aan soo horreysiinayo maadaama loo badan yahay in dhalashada lagu bilaabo haddana laba qodob baa igu riixay in aan jid duwan raaco waa mar ee anigu dhab ahaan ma yihi qoraa meyd ah ee waxaan ahay meyd qoraa ah oo xabaashu u tahay xoolkii labaad mar labaadka qoraalka ayaa sidaas ku noqonaya mid socon doocan oo hor leh muuse oo geeridiisa wax ka qoray uguma soo horreysiin ee uu ugu dambaysiiyey kaasina waa farqi aad u weyn oo u dhaxeeya buugan iyo Tawraadda Muuse taas haddaan halkaa dhigo waxay iga dhamaatay labadii duhurnimo gelinkii dambe ee maalin Jimce ah bishii August 1869 aniga oo jooga aqalkaygii duleedka Katumbi ku yaalay waxaan jiray 64 sannadood oo xiisad iyo baraaraba leh doobna waan ahaa waxay igu harsanaa 300 oo kaanto sheekadan sababtaan u soo qaadanay iyo micnahan kala soo baxaynay iyo ujeedkeygaba halkan ayaynu ku fahmaynaa la socdo waxaan arkay walaal muslima oo leh buug noo fala markaad akhriyayso hadba deegaan buu ka dejinayaa jawi qurxoon baad sawiranaysaa waad ku raaxaysanaysaa haddaba hadday sidaa tahay oo buug noo fali waxyaabo qurux badan oo uu sawirayo aad ku raaxaysanayso ku raaxaysaa haddaba ninkaa geeridiisa inooga sheekeeyey isweydiina ma ninbaa geeridiisa ka sheekeeya sheekada noofalkii waa ta noocaas ee waxaan walaalaha leeyahay iska hubiyo waxaad akhriyaysaan iska shaandheey